maamulka Somaliland oo xayiraad ku soo rogtay Boorama iyo gobolka Awdal maxay tahay xayiraadda ay ku soo rogtay muuqaalkan ayaan ku qaadaa dhigi doonaa daawade laakiin intaan u guda galin muuqaalka like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada bogaana follow soo dhamaadsanida aynu ku bilownay madaxtooyada Somaliland ayaa go'aamisay in la joojiyo kulan weyne ee hay'adda UNDP muddo qorsheenaysay inuu ka dhaco magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal horay Somaliland ayaa u bixisay ogolaanshiyaha shirkani oo lagu qaban lahaa magaaladaasi oo ay ka qayb galayaan dhammaan howlwadeenada hay'adda UNDP ee Soomaaliya ka howlgala shirkani ayaa la amray in loo wareejiyo magaalooyin kaleeto isla markaana amniga Boorama aysan damaanad qaadi karin maamulka Somaliland shirka ayaana la amray in loo wareejiyo magaalooyinka Burco amba Hargeysa iyadoo madaxtooyadu laba jeer ay go'aanka ku adkeysatay toddobaadkani gudihiisa in aan shir lagu qaban karin magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo ay tahay go'aan dawladeed sababtana looga dhigay in amniga magaaladaasi aysan damaanad qaadi karin maamulka Somaliland sida maamulku uu tilmaamay sidee bay ku dhici kartaa magaalo aad maamusho isla markaana madaxdeeda aad tahay inaad sheegto inaadan maamuli karin waa waxa maamulka Somaliland su'aalo ku horgudban noqon kara sidaasi oo kalena ay ka jiraan arrimo siyaasadeed sida uu sheegay maamulka Somaliland kuna cadeeyay warqad ka soo baxday madashani waxa ku baxaya lacag kun oo doolarka Mareykanka ah taas oo ay ka faa'iideysan lahaayeen bulshada magaaladaasi waxaana ka qayb gali lahaa madaxda ugu sareysa UNDP ee Geeska Afrika iyo dhammaan madaxda sare ee Soomaaliya ka howlgala meel kasta oo ay joogaan isla markaana hay'adda UNDP u jooga Soomaaliya tani ayaana waxa ay fursad u noqon lahayd gobolka Awdal iyo guud ahaanba maamulka Somaliland laakiin maamulka oo dana siyaasadeed ka fiirsanaya gobolka Awdal ayaa cunaqabateen ku soo rogay taas oo ka dhalan karta in ay ka dhiidhiyaan shacabka ku dhaqan gobolka Awdal horay ayay u sheegeen shacabku in maamulka Somaliland uu siyaasadeynayo wax walba oo gobolka Awdal uu xaq u lahaa iyadoo canshuur tira beela laga qaado gobolka ayaana waxa ay keeni kartaa in shacabku ay iskood isku xilqaamaan isla markaana maamulka Somaliland ay si biyo kama dhibcaan ay ula xisaabtamaan muddooyinkii ugu dambeeyay maamulka Somaliland iyo sidoo kale xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa waxa u dhaxeysay xurguf siyaasadeed iyadoo maamulku uu xilka xayuubin sheegay inuu ku sameynayo Maxamed Abiib Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada gobolka Awdal laga soo doorto isla markaana golaha wakiilada ee maamulkaasi ku matala gobolka Awdal waxaana muddooyinkani taagan xiisad ka dhaxeysa madaxda maamulka Somaliland xeer ilaalinta madaxda golaha wakiilada iyo sidoo kale xildhibaanada gobolka Awdal ka soo jeedo taas oo maamulku uu u riixayo arinta la xiriirta shirka UNDP ay ku qaban lahayd gudaha gobolka Awdal qaasatan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal maamulka Somaliland ayaana muddooyinkaniba waday in uu ka xagliyo gobolka Awdal isla markaana gobolada kale ee Togdheer iyo kuwa kale ee maamulka Somaliland iyo magaalo madaxda maamulkaasi ee Hargeysa uu u wareejiyo mashaariicda horumarineed ee gobolkaasi xaq u lahaa isla markaana uu heli lahaa daawade haddii aad soo gaartay muuqaalkan dhamaadkiisa like saar si share garay oo la wadaag saaxiibada bogaana follow soo dheh sidoo kale qaybta iyo commentiga inagula wadaag waxa ay kula tahay xayiraadda maamulka Somaliland uu ku soo rogay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal maxaa ka dhalan kara bal aragtidaada si cilmiyeysan dhanka iyo commentiga inagula wadaaga